sanado ka hor atooraha caanka India Mintum Chakraborty wuxuu ilmeer ka soo badbaadiyay qashin qubka gurigiisa ayuu geeyay wuxuuna ula baxay Dishani. Mintum oo ku caanbaxay filimka Disco Dancer ayaa waxa uu gabadhaas yar u soo badbaadiyay sida caruurtiisa oo kale waxayna wararka sheegayaan inuu aad u jecel yahay gabadhaasi Dishani. sanado kadib gabadhaani aadka loo kalkooliyay ayaa hadda weynaatay waxayna noqotay gabadh aad u qurux badan oo dhawaan la filayo inay bilaado jilista filimada. inkastoo uu 3 cunug kala dhalay, Mintum xaaskiisa Yogita Bali way ku taageertay barbaarinta cunugta yar ee jidka laga soo qaaday. sanadkii hore ayaa la filayay inay ka qayb qaadato filimkii Student of the Year balse uma suurtagelin. hadda waxay jilinka filmaanta ka barataa dalka Mareykanka. Mintum Chakraborty oo hadda 65 jir ah ayaa ka mid ah atoorayaasha loogu jecel yahay waddanka India isagoona inta badan ka qayb qaata arrimaha gargaarka ee waddankaasi. haddaba casharka laga baran karo qisadaani ayaa waxay tahay muhiimadda naxariista gaar ahaan badbaadinta carruurta ay waalidkooda dayaceen taasi oo ah dhaqan nasiib dara ah oo Soomaalida maalmahani ku soo badanaya. magaciigu waa Cabdinaasir Bambe.